diinka xaguu ka yimid talo isnaawo isaguna qaxaya habeenkii xalay waxaa lagu qabtay diyaafad ballaaran magaalada Nairobi oo lagu daawanayay filim oo ka qayb galay Ilaahay jannadii Firdawsaha ka waraabiye wariyihii caanka Axmed Xasan Cawke oo xalay oo kale sanadkii 2015 ku geeriyooday magaalada Jigjiga waxaa filimkaasi looga hadlayay hadimooyinka colaadaha iyo dagaalada sokeeye iyadoo Cawkana uu ku matalayay oo ay dhaqameed nabadda isagu markaasi u heelinaya halka Cabdisalaam Harari oo ka mid ah dadka dagaalka u haliilayay oo sida uu ku matalayay markaasi qorisitay ugu horeyntii waxa weydiiyay Harari bal doorka uu ku lahaa filimkaasi iyo waxa uu ka yaqaanay Cawke waxa uu yiri marka hore waxaan leeyahay Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo sanad baa ka soo wareegay markii uu god galay Allah u naxariistee walaalkay Axmed Xasan Cawke Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waa la wada dhimanayaa waxa weeye arintani ay tilmaan u tahay sida qofka wanaagsan ee Soomaaliga ee aan dhibaato geysanin umadiisa u geysanin intii waajibe ka saareedna ka soo baxa ay umadu u xusayso oo loo xusuusanayo marka cashar bay u tahay qof kasta oo maanta nool oo Soomaaliya in kaalinta uu ku tilmaanaado laakiin xumaan aanu ku tilmaanaanin Axmedna taasoo ka marxaati ahaa taasa magaciisu ka barakacayay filimkan la soo bandhigayna isaga kaalinta ugu weyn ku lahaa nin nabadoona oo sidii shakhsiyadiisu ay ahayd ayuu ahaa anigu filimka kaalinta ku matalayay waa tii aan shirka ka sheegay oo tii laysiiyun bay ahayd oo doorka qaadanay laakiin tayda dhabta ma ahayn shakhsiyadayda dhabta ma ahayn nin qorisita oo dagaal u haliilaya oo Axmedna Allah u naxariistay iskaga horimanayeen oo laha war dadka dagaalka ka daa Allah war dadka naga waalina naga daa nabadi ma jirtee filimkan waanu sii balaarin doonaa ani Axmed Faarax iyo rag kale nagala shaqeeyay gabdhuhuba meelo fara badan waanu marin doonaa laakiin imika wuxuu ahaa gogoldhigii ugu horeeyay laakiin iyo xus Axmed lagu xusayo laakiin waanu balaarin doonaa hadii Allah ilaahay ummadda Soomaalida waanu soo bandhignaa oo Soomaaliya in kaalinta uu ku tilmaanaado laakiin xumaan aanu ku tilmaanaanin Axmedna taasoo ka marxaati ahaa taasa magaciisu ka barakacayay dajinaha dawladda Soomaalida u fadhiya dalka Kenya ambassador Jamal Maxamed Xasan ayaa isaguna tilmaamay doorka in sheekadaada lagaaga sheekeeya ay ka wanaagsan tahay inaad adigu ka hadasho sida filimku uu ka hadlayay hadalkiisa nuxurkiisuna wuxuu ahaa haddayna sheekadeena sheegin managu iska waramin walaana ka waramaya macnaheedu waxa weeye si qalad ah wax leenu ka sheegaya marka inay energy geliyaan waqti geliyaan shakhsiyaad Soomaali oo la yaqaan magac Soomaali ku leh oo la garanayo Axmed Xasan Cawke kala naxariiste ay filim ka sameeyaan wadanka tagaan soo arkaan xaalado kala duwan sida filimka daawan cabsan qaybka ay dadka la wadaagaan intii waxa loogu farxo waxaan u maleynayaa inaan kulligan wada ognahay in haddii ayna inagu dhaqankeena iyo taariikhdeena iyo dadkeena aqoonta iyo dadkeena caanka ayna horumarin in cid allaali cid noo shaqeynaysa jino horumarinaysa sidoo kale wadanaha laga soo doorto kama kunji Afada Isli oo isagu horay u ahaa wariye caan ah oo BBC iyo Voice of Kenya iyo meelo badan ka soo shaqeeyay Yusuf Xasan ayaa isna ka hadlay mudnaanta ay leedahay in dadku dhaqankooda ay soo bandhigaan arinta ugu horeysa ee dadka intiisa badan ka cajabisay waxay ahayd codkiisa iyo afkarnimadiisa nin dalka Ingiriiska joogo oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo af Soomaaliga sidaas ugu hadlaya ayaa aad iyo aad uga cajabisay markiina wuxuu noqday dadka ugu aftahansan loona yaqaano idaacadaha Soomaalida anigu run ahaantii waxaan u haystaa inuu yahay wariyihii ugu cod wanaagsanaa ugu hawlkarsanaa aadna looga yaqiinay taariikhda wariyaasha dadka Soomaalida waliba idaacadaha ugu dambeyntiina waxaa soo gunaanaday gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale oo isaguna tilmaamay dhaqanka iyo mudnaanta uu leeyahay iyo inay dadku afkooda ku faanaan So I think one of the biggest lessons we have learned how aan barno waxa weeyo sheekadeen in aan ka sheegno waay sheekada ay sheegin siday many of the experts film actors and directors say sheekada ay sheegin qofku sheegaya ma waa shay khatar ah haddana waxaa la joogaa wadan adduun
oo very fast wada sheekada aad sheegin sheeko ku qof kale oo ku garab fadhiyo tiis ayaa qaadan wilkaan wuxuu yiri uu sheegay which was very very important wuxuu guriyana waxaan ku daawanaa filma from Bollywood Nollywood you know film wala daawada culumadena waxay leeyihiin film la daawanay laakiin guriyana sheekha xaaskiisa daawan caruurtiisa daawan marka inaan annaka aan garab idin noqono diyaar idin nahay إذا دونسها صومالي بان taxanaha filmkaasi qabya'iil cawke meeshii uu kaga jiray isagoo tilmaamaya inaanu qoys yar ku fillayn oo ummad fara badan oo malaayiin Soomaalinimadu ay ka weyn tahay qabiilka wiilka yar ee awoowaha uu yahayna ku waaninaya waxaan ka soo qaatay qaybtan waxa weeyaan awow wax qabiil layda wanaagiisa iyo xumaantiisu inta maanta ku arag waayo horta adigoo 100 milyan helay oo kula afo kula diibo kula dhaqado oo kula wax walba aad wadaagtaan maxaan saddex kun ama afar kun soo igu soo oodo hawey dhiigga Soomaaliga dhiigga walaalaga yaa hawadii